waraxmatullaahi wabarakaatu. Isku soo noqosho dambe iyo kulan dambe oo xiiso leh. Maanta waxaynu casharkeena kasii socon doonaa halkii noogu joogay. Waxaynu kasoo doodi jirnay maalmihii noogu dambeysay chapterkiini afaraad oo ahaa nucleus. Saan hore usoo sheegnay habeenka hore halkaa waxay noogu joogay ama cishadii hore saan usoo sheegnay waxay noogu joogay halkaa chapterkii afaraad ee nucleuska ah. Chromatinis, chromosomes waa u dambeeyay. Kulay qofkii la socday la socdaa kii kalena insha Allah inuu soo daawadan rajinaya. Maanta waxaynu dhiga doonaa chapterkii noogu dambeysay course-ka cytology-ga. Course-ka cytology-ga chapterkii noogu dambeeyay la cell division la. Cell division is a process. Haddii sii kala gudagalno introduction-kiisa. Cell division was a process by which cells waa sallalkaas u kala qaybinaya parent cells baa is qaybinaya iska dhigaya two ama wax ka badan iska dhigaya. Hadda eego waa parent cells waa unugyadii mataqaanaa waalidiinta ahaa oo kala ka soo qaado ayaa soo kala qaybinaya daft cells ubad kala soo qaybinaya. Waaye division kan usual occur wuxuu dhacaa lagu large cell cycle. Cell cycle-ada way mu ka dhaca every day, every hour, every second. waa mataqaanaa aad buu important yahay lagu life is going noloshana si horumarto in your body jidhkaaga cells-yadu difference qaybsamaya. Tag when marka lagu the difference asugu la qaybiya lagu they make new cell markuu is qaybiyo cell cusub oo sameynaya single cell baa haddana is dividing gareynaya lagu tag waa single cell iyo dividing musameynaya two cells ka haddana way is qaybinayaan maxay noqonayaan four cells and so on iyo xilliba sambusi qaybsamaya nasoo ogaatay kasabka. Way waxaan oran doonaa habkaas cell division, cell reproduction waxaa soo dhameeyay doona magacaano bixinaa halka because sababtoo ah new cells baa form sameysmo markii all cells are divided garoobay markuu all cells divided garoobay maxaa sameysmay new cell baa sameysmay. The ability of cell dividing unique for living organism waa awood baa lagu leeyahay soo kala qaybinayo waa awood baa lagu cellka soo kala qaybinayo unique wax u gaar lagu living organism jidhka bini'aadamka ama noolaha bini'aadamka. Way terminology wan yar gal doonaa bal terminology-dan sawir relate garin doonaa maan u sii aragno hadda inaga soo baxaan cytokinase mad maqli iyo karyokinase. Cytokinase iyo karyokinase isku duwan yihiin dadku isku khaldaan isku eeg yihiin la isku kala duwan yihiin. Way cytokinase waa division-ka cytoplasm-ka soo maareed waa division-ka cytoplasm-ka inta tuu he cytoplasm de karyokinase haddana imanana waa division of the nucleus of the cells into the two nucleus laba nucleus buu sameynaya hadda maareed laba nucleus ismadu cellku laba nucleus yeesha cellku qaybsama ka dhiganta. Way tani ka soo terminology chromatin baa jirta iyaduna waa team vibrous wax fiber weeyaan oo ka samaysan DNA iyo proteins protein ka samaysan yahay dabcan sida histone soo kale waa major protein chromatin sidoo kale sister chromatin baa jira waa identical structure isku mid weeyaan halkaas oo result qiimuhu yahay chromosome replication in chromosome replication garayaan ayna form sameeyaan phase synthesis phase baranaya phase-kaas phase synthesis phase waynu socdaa markii doona. How do cell divide isku qaybsama cell cycle baa lagu habku isku qaybsamo inuu arki doonaa. Way wadarka saan kulay oo ka bilaabay G1 buu ka bilaabaya cells-kaas kiis waxa bilaabaya division-kii kadib mataqaanaa habka synthesis phase ka la marayaan synthesis phase wax ku gaabto ama G2 dibetana maxaa dhacaya MITOSIS baa sameysmay oo habkii ugu dambeeyay isagoo gudgudaan soo gudgal isagoo mataqaanaa si faahfaahsan. What do you cell divide hadda maxay soo kala qaybeen cellka waxaynu qaybeen to growth inuu reproductive organism la habeeyo reproduction soo saaro. Way cell cycle as divided into parts interphase iyo MITOSIS baan qalisay insha Allah.
haddaynu usii caamadno timeka inagu yaraawadeed selku wuxuu isku division garayaa labadan system mar waa inuu mitosis maro iyo inuu meiosis maro. differencega u dhexeeya waxay kala yihiin halka dambe ku arki doonaa. attention soo jeedino waaye labadaas salku labadan buu qaybsamaya waa lagu division hadday noqoto. waaye haddaynu u galno interphase oo hab faceka ugu horeeya mataqaanaaye isoo sheeg markaynu kala qaybinay interphase iyo kala qaadnay iyo interphase or mitosis markaynu kala qaadnay cell cycle interphase ka soo kala doona oo kor wax ka dhaca between division qaybsanka u dhaxaysa waa largest part of cycle waa qaybta ugu weyn cycle-ka. 3 stages by star G1 S iyo G2 waxay u taagan yihiin arki doona. G1 or gap 1 the cell could just finish it wuxuu dhameeyay dividing qaybsaki. sidoo kale gap 1 the cells recovery from mitosis waxay ka yimaadeen mitosis macnaha waa habka meesha uu ka bilaabmayo soo maaha mataqaanaaye au ku bilaabmayo mataqaanaa divisionka soo maaha. marka meeshaasi waxay ka imatay mitosis ugu dambeeyay mitosis soo sameysmay ayay ka imatay tayna. waaye si socdaa dhigis haye haddaynu G1 soo aragnay S or synthesize stage mar DNA replication sameysay DNA qayb sameysay replication sameysay largest phase of interphase phase ku dheer interphase marka laga hadlayo synthesis phase. G2 or gap 2 this preparation for mitosis maxaa diyaarnaya habkii mitosis loo aadi lahaa mitosis halkii loo qaybsami lahaa ama stage ugu dambeeyay ayaa la qaybinaya. the organelles application organelles la qaybinayaan more growth occur korniin aad u badan baa laga arkayaa. way waxa ka sheekayna wax kan G-phase wakaas G-phase waa sameysaya muxuu ku yimid soorna M-phase mitosis phase waxa uu ka yimid. way synthesis phase waa S-phase waa phase ugu weyn oo naga lahayn. G2 phase waa phase kan dividing kala sameynayay. way M-phase na waa habka ugu dambeeyay division ku dhacayba. tani ka socono mitosis baan irgali doona mitosis iyo meiosis beerka arki doona mitosis baan geli doona is a somatic cell division weeyaan waa somatic cell division cell-yadina baarigeenu ka dhaca jirkeenu ka dhaca. mitosis bigan wuxuu ka bilaabmaa mitosis bigan u bilaabmaa lagu after G2 markuu dhamaado ayuu bilaabmaya baa lagu ka G2 gu dhamaaday maxaa bilaabmaya mitosis. waaye haddaynu ka socono mid haddaan sii galno marka la joogo isoo sheeg mitosiska afar yaroo system baa jira oo la dhahdo Prophase Interphase Telophase waad arki doonaa iyo Prophase wana arki doonaa afartaaba. phase ugu horeey waa Prophase wuxuu yahay markaad aragto wax doonaysa waa chromosomes waxa sameynaya condense bu'da ayaa mataqaanaa ku qarsoomaya condense microtubules formay sameysmay microtubules oo reero baan naqanaa. the nuclear inform breaks down nuclear inform dhexda ku jirtana way kala jabaysaa. hadda fahanti nuclear inform dhexda ku jirtay ee nuclear saddexaanaysa way kala jabaysaa. maanta waan garanaa nuclear inform waxay taa sheegmayna hore soo sheegnay. waaye metaphase baa jiray isaguna waa chromosomes are pulled to the center chromosomes maxay tagayaan hadda chromosomes ka sheekayna ma fahmi waa kuwa chromosomes waxay tagayaan centerka tagayaan. the line up along metaphase plate buu noqonayaa hadda faatay line up ay noqonayaan kuwa tagtaagan bay noqonayaan. haddana ka socon Interphase baa isaguna jiray Interphase-ka centromerska divide ma sameynaya centromerski ee ku yaday maxay sameeyeen centerkii yimaada Soomaa markii la joogay maxay Telophase MITOSIS markii la joogay maxaan aragnay waxay joogan bartankay joogan laakiin markaan xagii jigeen way kala dalkeen baalasha kala qabsadeen. they spend for a pulled on z of chromosomes to each ball with dhinac kale ordaysa mid kasta dhinacii tagaysa boolkii tagaysa. way Telophase daniman ama phase-ka u dambeeyay mitosis nuclear inform to wareegsan baa lagu
nuclear envelope ku wareegsan nucleonta mataqaanaaye nuclear envelope form waxay sameynaysaa arag chromosomes wareegsamaysaa ka hadda mid kastaba nuclear envelope saxonomy chromosomes aan call bay noqonayaan kuwa aan call lahayn isku laamin noqonayaan cytokines baa dhacay division cytoplasma oo nexro soo sheeg ku cilmayno thanks for watching aad baad maasatay kula sida fiican daawatay insha Allah waxaan ku rajeynayaa you have to me inaad mataqaanay aad prepare garayso oo casharka diyaariso insha Allah inta hadaan soo raacin doonaa qofkii saftigiisa casharka u baahan insha Allah siin doonaa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh